kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah badh-dhaqameedka waxgaradka odayaasha gobolka Murudijeex ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ay u taageeri lahaayeen qoodada haweenka waxaanay dhammaan mas'uuliyiintani sheegeen in hadda la gaaray waqtiga ay haweenku wax ku yeelan lahaayeen siyaasadda iyo talada dalka. Madaxdhaqameedadii gobolka Murudijeex haddaan nahay waxaanu taageersanahay in golayaashu ay siiyaan saamiga loogu talagalay madaxweynuhu uu u ogolaaday inay siiyaan golayaasha baarlamaanka. Haddii aynu nahay dad islaam ah waxaynu u ogolahay dumarka wixii shareecada islaamku ay u banaysay in ogol. Waxaan u soo jeedinayaa madaxdhaqameedka Soomaaliland in ay nagu taageeraan codsiga iyaga iyo soo jeedinta aanu ku taageerayno haweenku berigii hore ee dhaqanku wax ka celinayay mutacallimiin ma ahayn aqoon-yahanna ma ahayn maanta lagama aqoon-yahan sana cid kama mutacallim sana waa aqoon-yahan meedhan mutacallimiin ma weeyaan raggu kagama horeeyo shareecada islaamku waxaanay ka hor joogsan oo ay xaq u leeyihiin ha loo ogolaadaan leena golayaashu waa koorsada aan haweenka ka hor joogsanin waa inay u ogolaadaan haweenka cod madaxdhaqameedkayga dee kama xigna ragga golayaasha kama xigno waa hablahoodii waa hooyooyinkood waa habaryarahood waa haweenkood waxaanu leenahay kama xignee ha u ogolaadaan koortada ha u ansixiyaan doorashada ha la taageero arriniya dumba ha lagu taageero wixii sharcigu ka hor joogsado iyaguba dooni maayaan lana siin maayo sharciga islaamku wuxuu ogol yahay ha loo daayaan leenahay halkan waxaanu ka muujinaynaa hiiliyaho uga muujinaynaa kootada ay leeyihiin haweenka Soomaaliland in la baaskareeyo oo cudud waliba lagu baaskareeyo waxa ay diintu ka qabto waliba waxaan taa u sii dheeraan ka hadlay waxa weeyaan xisbiyada qaranku inay taageero iyagana buuxa u muujiyaan haweenka uqaasha naga maqanna waxaan ka codsanaynaa in ay nagu taageeraan taageerada haweenka doorashada han kale in la doorto rag iyo dumarkana waxaan u sheegayaa inay isku kalsoonaadaan maanta aqoon halkay ka gaadheen madaxweynaha Mareykanka Ilhaan Cumar baa la murmaysa 100 ilhaan baynu leenahay waa inaad hablaheena doorataan saddexda cusub waxaanu ka codsanaynaa inay arrintaas si dhaqan galiyaan golayaashana waxaanu ka codsanaynaa kootiyo wixii ay xaq u leeyihiin inay siiyaan madaxweynahana waanu ku taageersanahay warqadda uu qoray kootada ugu qoray haddaan cuqaashanahay qaar baa u haystay inaanu xagga wagartay hablaha ka taaganay waxaanu taaganay intayada galcasayaasha ee galbadoobaha iyo mid waliba hablaha kootada in qaybtooda si cilmeysan loo siiyo hablahana waxaan u sheegaynaa qalbiga ka dejiyo ha odhanna galcasa idin diidanay galcasa weydin ogolyo ogaada waa cuqaale ma ogolay waxaanu leenahay haddaanu reer Soomaaliland cuqaashooda madaxweynaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inuu qalbiga uu ku hayaayo isaguba wuxuu doonayay inay galaan inuu hablaha kootadooda si degdeg ah loogu ogolaado shanta gobol ee Soomaaliland marka laga tago caasimadda Murudijeex waxaan leeyahay dumarka ku noolow maanta cuqaashiyo dumarku way isla qaateen idinkuna isku tashada saddexda xisbi qaran waxaan leeyahay waa dumarka si kootadooda madaxweynuhu waasixiyay Cabdulqaadir Cudi Honkaba TV Hargeysa.